السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. داود يالكسو دوادا برنامج كيني مداشا قويهانكا وآلا بحليدا نوكالات كلا سعطان شاشة عالمية هون كيبل تي في. برنامج كينا يان آلا بوحانو غاهدالنا أريمها السياسة يقود أهان أريمها بلشي كجيرة دالك الصوماليا. waxaana toddobaadkan uga hadlaynaa doorashada ka socota inay dhacdo maalinta berrito ah maamulka Puntland. doorashadaas qaabab kala duwan ayay soo martay, marxalad kala duwan ayay soo martay, waxaana la filayaa in waqtigii loogu talagalay ay ku dhacdo iyadoo horena loo doortay gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Puntland. haddaba barnaamijkayga maanta ayaa waxaa marti iigu ah injineer Cabdifataax Cabdullaahi Muuse oo loo yaqaan injineer Farey oo ka mid ah qorayaasha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi. iyo sidoo kale Maxamed Cali Xaaji oo ku magac dheer MB oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Puntland ee dalkani Kenya. ugu horreyn ku soo dhawaada barnaamijka madasha aqoon-yahanka ee Home Cable TV. anigoo ku hormaraya gudoomiyaha jaaliyadda Puntland Master MB doorashada Puntland waxaa lagu wadaa inay waqtigeeda ku dhacdo oo ah 8 January ku aadan maalinta berrito ah. maxaad is leedahay maadaama marxalado kala duwan ay soo martay doorashadaas qaab noocee ayay u dhici doontaa? bismillaahi raxmaani raxiim. arrintii ugu adkayd waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo ismadii reer Puntland oo kasoo qayb qaatay in halkan si guul oo nabada ku keenay baarlamaankii iyo gudoonkii baarlamaanka labadaba ku guuleystay si aan inaba aan caadi ahayn uguna farxeen ama Soomaalida farxad gelisay waraabahooda farxad gelisay in ay guul ku dhacdo doorashada tan. iyo generaal Siciid Dheere oo taliyaha ammaanka ah hadeertan oo asagana qaybta ugu weyn ka qaatay ismariwaagi iyo arrimihii problemka ahaa oo badan kasoo gudubsiiyay dalkaas ama dawladdaas Puntland. hadiiba caqabadii ugu weyneed waxay ahayd baarlamaanka, marka iska qabsigii iyo problemkii ugu xumaa oo aan la isdhahayay waxaa lagu dari doonaa bil ama waxaa lagu dari doonaa 20 cisho ama see dadkan loo kala saari doonaa oo loo kala guri doonaa dhib badan bay noqon lahayd. dadku kulli Soomaalida kulli waxay ka fikirayeen wallahi say baarlamaankan dadkan kusoo kala bixi doonaan. marka laakiin waa la kala guray oo dadkii waa laga farxiyay dadkii Soomaalida ahaa oo kale. dadka Soomaalida dad isjecel had iyo jeer waxaan lagu fahmaa markuu problemka jiro. dadka Soomaalida meel walba ay joogaan ka xanuunsan yihiin dhibta Cabdifataaxow Puntland sida hadeer baadiga marka horeeto aad ay sheekeynaysa baa lahayd. aad baan ugu faraxsanahay sida quruxda badan ee loo kala guray dadkan. marka Puntland sida sheegtay hore ku dayasho ayay mudan tahay in lagu daydo, waayo caqabado aad u xun baa laga soo gudbay. waxaan rajaynayaa hadda meeshan ay joogto waxaa keenay waa taliyaha ammaanka iyo ismada reer Puntland. labadaasi waxay leeyihiin bilad sharaf. aad baan uga hambaliyeynaynaa. qaybta ugu weynna ismada waxaa ka qaatay oo hadda nabadoonba noqdaba madaxweynihii hore ee Cadaan Muuse baa aad wuxuu uga qayb qaatay in arrintani si nabada oo odaynimo ay ku dhamaato. guul bay ku dhamaan doontaa. maanta odayaashii maanta waxaa la doodsiinayaa musharaxiintii berrito on time xilligeeda ay dhici doontaa doorashada. wax problem ah oo ka imaan doonana ma jiraan, waayo awal horeeta madaxweynaha meesha yimi oo joogi jiray oo ka talin jiray waa laga guuleystay. si nabad ah buu xaflad intuu u qabtay si nabad ah buu halkii u gacan qaaday ugu wareejiyay xilka. ومازن تاي هاي انجينير معاك دريسة أديك محي كل موقع درشان قاب نوعي ودعي دونتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن هذا وجهنا يا ميديا ده هذا يقول عليه وهي كان إن ذاتك جارسيان وحيابها مكان لسه بالشدة غرمر كوله. وأما أرمى بالشدة هاتو أما دنا سياسة كلها هاتو أما دنا غرمر دنا عدن طبعها هاته. وحين ميديا ده كيه هنا حبين مهمة xagga waxqabadka horumarinta bulshada. runtiina waa wax looga mahad celiyaa inkastoo ay iska jiraan waxyaabo yar oo iyadana keento tababar la'aanta iyo wadanku aan wali sharci qabanayo qofka oo rasmi aanu jirin iyo waxyaabo caqabado noocaas iska jiraan, laakiin sida ay wadanku yahay iyo sida ay u shaqeeyaan yacniga wax aad iyo aad looga mahad celiyo weeyaan. tan kale markaan u soo gudbo mawduuca meesha tan aan kaga hadlayno
anigu xaqiiqda markaan ka hadlo horta waxaan ka hadlin anigu dhowr arrimood oo kala ah qiimaha ay Puntland ku leedahay Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale waa qodobka labaad muhiimadda ay u leedahay dadka reer Puntland doorashada la filayo inay dhacdo berito oo 8 bisha ah qodobka saddexaad oo ah waxa laga rabo baarlamaanka cusub in ay sameeyaan oo looga fadhiyo maanta qodobka afraad oo ah waxaan ka sugayno musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha in ay qabtaan iyagana waxbaan ka sugaynaa tan u dambaysa talageliyo aan u jeedinayo dadweynaha reer Puntland iyo cid kasta oo ku guuleysata hoggaanka dalka 5 sano soo socota وماتنتا مالسدي كرا إن doorashadii ka dhacday baarlamaanka waxay ahayd tijaabadii ugu horeysay ee xildhibaanada Puntland xildhibaanada cusub ee Puntland ay ka gudbeen oo ay ku doorteen gudoomiye cusub oo ah ka duwan gudoomiyihii hore baarlamaanka ama dadka hore u soo maray siyaasadda Puntland oo uu ku cusub yahay ninkan oo macnaha isbedelka dadka qaar waxay ku sheegaan inay yihiin dadka isbedel doonka dhankooda inuu ka socdo ma la dhihi karaa marka in isbedelkaas cusub ee baarlamaankan ay la yimaadeen inay tahay furaha koowaad ee lagu aqoonsan karo baarlamaanka inay yihiin dad tayo leh adeerota waa mahadsan tahay laakiin anigu waxaan bagaran isbedelka la rabo wax la bedelayo qofkuna markuu wax bedelayo system siyaasi marka la yiraahdo magaca siyaasi name la iska qaato ma waa title-kuna wuxuu ku yimaada aqoon professional weeye jaamacada loo gala lacag baa lagu lumiyaa kharash baa ku baxa waqti baa la siiyaa sanawaad baa lagu soo qof waa inuu ahaada qof xaaladda taagan wax ka bedeli kara oo xaalad cusub furi kara laakiin haddii uu wuxuu magac noqdo macno weyn ma samayn karo magac khali hadduu noqdo magacu waa inuu waxa uu yahay huwiye marka isbedel la doonayo waxa la bedelayaa waa inay ahaadaan ay system lagu socday oo ahaa directionkii hore lagu socday in mid ka haboon looga guuro oo dadkana uga fudud hadii la haydankeeda leeyahay caalamkana uu soo dhaweyn karo marka wax la bedelayaana ba anigu garanayno la leeyahay isbedel baa lagu sameynaya because waxa kan waa hal ummad waa isku aqoon waa isku aqli waa isku mabda waa isku diin waa isku hadaf waxa la kala bedelayo laba qof ma la kala bedelaya laakiin system la kala bedelayo meeshii la ugu maleyn maayo dadka isbedelka doonayaan waxay bedelayaan kulli iyagu ma la weydiinaya sheegaya tar MB hadaan ku soo laabto musharaxiinta Puntland u sharaxan aday u badan yihiin inkastoo qaarkood ay tanaasuleen ayna sheegeen qaar kale oo kamid ah musharaxiinta inay tanaasuleen maadaama musharaxiinta ay badan yihiin Soomaalidana sidaan ognahay ay yihiin dad wali qaab qabiil wax ku qaybsada oo hatta Puntland hadda qaabka baarlamaanka lagu soo xushay uu yahay qaab qabiilada dega ee Puntland lagu soo xulay haddii marka Puntland kulley kursigu waa hal maahan kuraas badan meesha ma taalo uu qof musharaxiintaas ku soo baxo isqabqabsi badanna uu ka yimid qaabka baarlamaanka loo soo xulay natiijada sidee kula ay ka kartaa abtaxow horta problemka jira waxa weeye qof baan wacashalay marka gudaha joogo muhiim ah marka musharaxi aan la hadasho wuxuu ku leeyahay laba musharax aan la hadlay nin walba wuxuu yiri waxaan haystaa ugu yaraan 22 in ismaqlayeen baa mudda rag kaleeto oo ragga la shaqeeya ayagana waxaan weydiiyey sidoo kale waxa la yiri musharaxiinta Puntland joogto oo dhan mid walba wuxuu leeyahay aniga 22 ama 30 baan haystaa markii tirada la isu geeyay wuxuu noqday baarlamaankii 175 tirada caadiga ah oo 66 marka problemkaas horta jiray oo qof walba is qabinayaayo sida uu maxaan ku yiraahday wax ku heli ama baarlamaanka wax qancinaya ma laakiin gar laba ninka mooda qoslisaa la yiriyo kullay nin baa kursigaas ku fariisan doona ninku doona ma noqday waxana u badan tahay haddaan imagine garay isbedel inuu imaan doono xagga kursiga ah markii aan xiriiriyo badan sameeyay qof walba walaa mu'ayid walaa mucaarad markaan gudaha aad baan u interestaya oo aan u daneeyaa inaan la hadlo mar walba hadeerna caawan bixi rabaa oo waxaan u socdaa Puntland hadoo alla idmo waxay isku raaceen isbedel inuu dhici doono oo ma xagga maamulka ah markan waxaan leeyahay aniga war isbedel hadduu yimaado ma xuma suguud isbedelkan taageerayna anagu isbedelkan horyaalkan nahay wali aan horyaal baan ka ahay isbedelka
raggii horey ugu dhawaaqay baan number 1 kan kamid ahaa raggii in isbedel uu yimaado marka haddii laakiin ay musharaxiintu maadaama ay badan yihiin baarlamaankuna sidaa sheegto 66 ah nin walbana uu sheeganayo inuu awood ku leeyahay baarlamaanka asaga uu kusoo baxayo hadhow qanaacada ay heli doonaan haddii ay ku guuldareystaan ilan kursigu waa hal oo qof uu kusoo baxo sidee loo xalin doonaa arrintaas haddii musharaxiinta qaar ay ka boodaan cabtaxow meeshan waxaa jira dowlad weeye qofkii gacan sameeya gacan bidixeed sameeya oo wax aan sharciga qof sharci ka weyn ma jiro meeshan qofkii sharciga ka weynaada waa la qabanaya waa la xirayaa haddii ka badan weydana waaba la dilayaaba laannahu puntland dowlad weeye ciidamay leedahay ammaan waxay leedahay xasaanad marka ninka xasaanadoodaas ku tunta way dirayaan macnaha mana imaan karo laannahu dadka reer puntland waa iska shacabkeeda waa iska dowlad waxaanay qaylinayaan musharaxiintan yabqayaan waxay rabaan dhahayaan waxay rabaan isdhahayaan ayaga gudahooda waxay rabaan isku sameynayaan haddana hadhowdii markii electionka u dhaco nin walbaba nin kale ku gacan qaadaa oo waa dhaqan habdhaqmeed waxa weeyaan dawadeysan bay garanayaan shacabka reer puntland oo musharaxiinta iyo ama qofka musharax ha noqdo ama kan xilka haya markaas ha noqdo musharaxiinta waxaa ka horeeyay baarlamaanka oo lasoo doortay waxaan weydiinaya su-aashaas engineer Faray musharaxiinta dal kasta wuxuu leeyahay marjac oo u laabto dalalka caalamka ah ee dhisan oo dhan madaxweynuhu wuu yimaadaa wuuna baxaa laakiin dalkaas nidaamkiisa iyo waxba iskama bedelaan hadii wadamada salka adag oonan wax isbedel uusan ku keeni karin madaxweynaha waxay leeyihiin marjac puntlandna marjacaas waxaa waa sidaan malaynayo isimada hawshoodu ma ku filnaan karaan haddii doorashada markii ay dhacdo isqabqabsi uu ka dhasho in ay noqdaan marjici kala saari lahaa dadkaas ama haddii qalqal siyaasadeed puntland uu ku yimaado inay dalka ayaga gacanta ku dhigaan awood ma u leeyihin waxaan qabaa anigu horta wax la isbarbar dhigi karo maaha caalamka iyo xaaladda gobolka puntland oo may tusaale ahaan waayo adduunka qofka marka la dooranayo marjaca noqonaya waa marka koowaad horta wuxuu ku yimaadaa rabitaan shacab oo salku kasoo bilowdaa qof waliba codkiisa ilaa inta loo ogol yahay oo age-ka loo ogol yahay inay cod bixiyaan qof waliba codkiisa wuu dhiibtaa isagoo ku kalsoon buu hadhow qofka soo baxa sabood gareeya taasuna waxay keentaa marka in uu dadku awood u yeesho inuu qofka markuu doono diri karo hadda tan markaan eegno waxa weeyaan awoodda doorashada waxay ku limit bay leedahay meel bay kasoo bilaabantaa meel loogu dhamaataa laakiin shacabka ma gaarto yeelkadeeda adduunka waxa weeyaan waxyaaba badan baa la qiimeeyaa maadaama Soomaaliya ay tahay dal burburay oo aabihii kala wasoo de jaanta harula ka dhacday oo haddana xaaladiisii weli hirig inteeda badan ku jirto in inuu miisaan saarno hadda u malayn maayo inuu macno weyn soo saarayo wuxuu hadday dhacaan oo yimaadaan kulli dad baa badbaadiye awalba dadkii badbaadiyana dee kulli waa nool yihiin wixii dhintayna bedelkoodii baa jooga ragna waa ku radoodo kulliga dee iyaga unbay u taallaa say yidhaahdaanba laakiin waxaan aaminsanahay sidii awalba xalka ugu sameeyeen xal ugu samayn karaa bana u aaminsanahay dad miisaankooda lehna weeyaan wadaana miisaan lahayn isqabqabsiga waqti walba dhaca iyaga ayuunbaa u noqda iyaga unbaana xal u sameeya kii ugu dambeeyana iyaga kulliba dee meel saarayo kala dejiyayo siday hadda ku socodsiiyo kalsooni dadka dhexdiisa kala dhigay marka inay dejin karaan oo marjicoodu wax badan qaban karo baan anigu aaminsanahay maadaama ay yihiin dadkii unkamay dadkii soo bilaabay dadkii macaayse keenay baarlamaanka hadda jooga waxoo dhan maadaama iyaga ay maasuul salkii unugtii u yihiin oo gunta u fadhiyaan inay wax badan ka qaban karaan baan aaminsanahay insha allah guddiga doorashooyinka waxa ay ku dhawaaqeen ay sheegeen in qofka puntland ka noqonaya madaxda uu noqonayo qof puntland u dhashay marka qofka puntland u dhashay ma waxay ula jeedaan qof puntland aanan ka bixin intaasoo sano oo dhibka uu ka jiray mase meeshuu doono ka imaan karaa dalka meeshuu doono ama dibadda uu ka noqon kara madaxweyne maayo horta dadka hadda sharaxaan oo dhamay waxa weeyaan dalkay u dhasheen ninku hadduu doono jinsiyad kale waa qaadan karaa oo dee dastuurka iyo nidaamka dalku midna u diidi maayo inuu laba jinsiyood qaato marka dhalashaduna maaha wax la qaato jinsiyadda qofka citizen markuu noqonayo laba qodob baa lagu qiimeeyaa inuu soo galay oo lagu siiyey system iyo
inuu u dhashay oo aan laga qaadi karin beri dalka laga masaafurin karin marka dadkan dalka lagama masaafurin karo dhulkay ku dhasheen dadkay u dhasheen waa dadkii dadka wala xuduntooda ku aasan marka ujeedaduna wax kale ma ahaane waxaan qabaa inay tahay cid aan gobolka u dhalan oo ka soo jeedin inaanay isu sharaxi karin inuu macnuhu yahay because lama ogolaadeen xataa inay hadda maanta ay marayaan debatekii u dambeeyey oo beri doorashadii la isu taagayo in la isweydiiyo la yiraahdo su-aashaas maxay ahayd dee waxaan baa meesha ka waafurno nin waliba ishu iyada birta aragteen deegaana iyada laacda oo wada jeedna insha Allah waa mahadsan tahay gudoomiye waxaa jira in gobollo ka tirsan Puntland ay dagaalo ka socdeen sida Khaatumo State oo kale madaxdii Khaatumo qaar kamid inay dib ugu soo laabteen Puntland marka horena wasiir ka ahaa isbedel maxay u keeni kartaa doorashada haddii dadkii Khaatumo u goosta marka hore haddana inta ku soo laabtaan Puntland maxay ku keeni kartaa isbedel doorashadan socota Axmed Kaash baa wuxuu ahaa madaxweynihii Khaatumo ahaa wuxuu yimid Puntland wuxuuna isu sharaxay madaxweyne ku xigeen oo waliba hadlay wuxuu ku dhawaaqay hadaladiisa waxa kamid ahayd haddii la doorto wadamadii maqnaa ay soo celinayaan maamulka hadda joogana wuxuu systemka ku soo galay dawladeed wuxuu ku soo galay oo lagu doortay gobolada maqan baa soo celinaya marka mid walba dhaqankiisa waxay tahay markuu madaxweyne noqonayo inuu dhaho laascaanay ay soo celinaya hadhowdana ma soo celiyo waa dhaqan caadi oo jira weey marka kulleedii ama wuxuu Axmed Kaash ama wuxuu ku biiri doonaa ragga ka soo horeeyay wadada uu raaci doonaa oo ratibarta ka horeysan qaadkeedu leeyahay liiro buu ku biiri doonaa ama nin rag aad noqon doonaayo gobolada maqan buu soo celin doonaa waa intaas weey marka asaga ka sugeynaa wixii hadallada uu ku hadlay inuu ka rumeeyo waxa la yiraahdaa ragna balan baaxira dumarna meher baaxira marka hadduu hadee nin adag noqonayo welcome balan aad u mahadsantihiin waxaan ku sii siqeynaa gabagabadii barnaamijka doorashadiina waxaa ka dhiman saacado kooban dad badan ayaa idin daawanaya oo shaashada caalamiga ah Cable TV idin kala socda waxaan idin siinayaa daqiiqado kooban in dadkaas mas'uuliyiinta Puntland shacabka reer Puntland baarlamaanka Puntland intaba baaqina ugu dambeeya engineer adiga ku hormaraya horta anigu awal baa madawaa shaaciya anigu waxyaabaha aan rabo inaan halkan ka sheego maadaama aan nasiib u yeeshay in aan warkayga ka gaarsiin karo shaashada tan Cable TV ee caalamiga runtii aadna ugu faraxsanahay in fursadda qaaliga ah oo aan helay oo wax badan aan isku day xataa inaan xaawilo oo haddana waqti badan i saamaxi waayo duruufo jira awgood hadda waxaan leeyahay maadaama waqtigu kooban yahay waxa baarlamaanka horta waxaan ka codsanaynaa oo aan u jeedinayaa halkan aniga iyo dadka ila midka ah oo ma garanaysaa muwaadiniinta reer Puntland waxaan leenahay niman yahow ilaahay intaa ka baqdaan oo rabbigay dib ugu noqotaan eega mustaqbalka iyo aayaha dadka iyo dalka oo qof dalka wax anfici kara oo aad istiraahdaan dalkaas ayuu badbaadin karaa maadaama lagu jiro xilli kala guura oo waqtiguna adag yahay Soomaaliya lafteedina ay xaalad kala guura ay ku jirto Soomaali weyn qof la challenge qaadi kara oo la jaan qaadi kara wadanka intiisa kale iyo dhibaatooyinka ka jira Puntland gudaheeda oo dadku ka cabanayaan dabooli kara oo wax ka bedeli kara inaad soo saartaan baanu ka codsanaynaa oo ilaahay rabbiga intay ka baqaan qofku mas'uuliyadu cayaar ma qofku maalintuu la dhaariyo oo xilka isu soo taago mas'uuliyad aan ummadda kale saarnayn baa saaran ilaahayna kula xisaabtamayo shacabkuna bari waa kula xisaabtamaya iyaga kuwaas sidaas aan iri waana ku sii buurinaya waliba mar labaad baan leeyahay ilaahay ka baqa oo dadka iyo dalka dib u eega nimanka la musharaxiinta ana mid baan leeyahay waxaan leeyahay miyuhu meesha tan horta raggu kursi kaliya yaala laguma wada guuleysanayo nin baa ku guuleysanaya ninka ku guuleystana kulliba waa nin meesha ay nimankaas soo saaraan 66 ka nin baa gacantooda ku jirta oo mustaqbalkii dalkana gacanta ku haya haddii
uu ninka ku guulaystaa waxaan ka codsanaynaa in uu dalka iyo dadka uu ku soo celiyo xaalad caadiya oo dadka wax tabanaya iyo kan kale oo aan wax tabanayn labadaba uu cadli falo wadankana uu ka dhigo wadan dadku uu u siman yahay oo ma garanaysaa wax walbaba uu qof walba xaquuqdiisa heli karo kuwa laga guulaystana waxaan leeyahay idinkana dee waxa weeyaan kulliba ragi garilooninka wada qoslisto guushu ma wada raacdeen in aad la shaqaysaan ciddii soo baxda oo isgarab taagtaan idinkaa dalka u caqliya idinkaa u bahalkiya awalba idinkaa isu soo taagay saa isugu soo taagteen inaydaan dib uga isxabina nimba meel u dhaqaaqine ay isgarab taagtaan si uu wadanku cagiisa isugu taago uga hormaro oo siduu awalba munaaradda iyo xidigta dalka dhexdiisa ka muuqata u ahaa uga sii noqdo tan kale shacabkan faraya kula dardaarmaya shacabka waxaan kula dardaarmayaa in ay ka waantoobaan waxyaabaha aafeeyey gobolada kale ee Soomaaliya waliba koonfurta in ay eegaan dantooda ay ku soo noolaayeen muddada dheer iyo nabadgelyadu dadkoo dhan bay dan u tahay iyagay dan u tahay Soomaali weyn oo dhan bay xitaa dan u tahay amaadsan tahay bismillahir rahmaanir rahiim إلهي وحير إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا أرتا وحاوية أمانة العرق يضل يبوري كل بديدي أنا هصدل من وياش على الدش صاصدي أنا ود بعد الليل برلمانو ورهوي هنقولنا هل معلم بعيل جوكتاي النقطة بسيدة عدل كاسي دت كاسي وبد بعدين هذين فعلا كذا قلق تهذا كا يسبدل كان هذا الوضع رواقيه حدي دمتا أمضى نين كفين كره هداد ويسان ساد خربتها هداد ويذالي ساد كبدين ويذال يلا ورنين نبعيسنا هرمر لو مجاره نين جعليسنا هرمر لو مجاره حدي عبد الرحمن دل كاسي عدو دانتا إنجرنا أسأل سوء عليه حديدا نهين هدي عاد ان أركتان مشرحين تاني من معقولة أو هوشان كبحي كرانا وردوشة كسارة وردوشة بدبادية هذا واحد مقلعي أنا على حاجة على عبد عواري نك اللي هذا عبد الرحمن شيخ محمد والمحمد هذا الحلقة هيا سيد حاسد الشيقي dad kana yaan looga cararin wadaado hada waxa على حاجة وكله waxa leeyahay wadaad aad baa loo dacayeeday war hadeeno dadka suusuuban oo wanaagsan inuu ka cararno